بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. magacaygu waa Muuse Maxamed Saciid ama Muuse Waraabe haddaan aanaysa ku daro. waxaan maanta shirkan sharaa'id u qabtay in aan halkan maanta ku dhawaaqo arrin aan isleeyahay aad iyo aad ay muhiim u tahay dalka iyo dawladaba aad iyo aad muhiim ugu ah. arrintaas oo ah maalmahan waxaynu ogeyn in madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland meel cusub loo dhisiyay oo magaalada ka baxsan halkaasoo sida warkaynu ku hayno waxoogaa muran uu ka taagnaa. haddaba anigoo ah muwaadin reer Soomaaliland magacaygiina hore ka sheegay waxaan doonayaa inaan fariin u diro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi in aniga oo ka wakiil ah caailadda reer Waraabo Tafe aanu madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland u hayno dhul aanu ugu talagalnay inay dhisato isla markaasna ay noqoto dhul ay leedahay madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ciidina ku haysan ciidina ka daba hadlayn isla markaana ay ka soo guurto halka imika maaragtay ay umaran ku taagan yahay oo soo guurto goobtan cusub ee aanu u hibeynay madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan mar labaad ka codsanayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo karaamada dalka iyo madaxtooyadaba doonaya inaan ka qayb qaato oo waajibaadka muwaadinimo kaga qayb qaato inaan u bandhigo in aan dhulka maxaan ku raadayay ay doonino in ay Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxtooyadeedu ay u soo guurto lagana dhiso halkaana aanu madaxweyne karaamadaada iyo sharaftaadaba aanu jecelnahay inaad maxaan ku raadayay halka aad maaragtay aad dalka ka maamusho ay madaxtooyadu halka ay noqoto. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.